السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macallin Maxamuud cashkan waxaan ku arki doonaa tobankan erey meesha noo saaran ereyga koowaad waxaa loo aqriyaa vinegar waa bahal yar oo sida biyaha oo kale ah inta badan waa dareere waana dhanaan cunooyinka marka kor laga dadaadiyo si uu dhadhan u yeesho sometimes dadka lean bay isticmaalaan lean waxay leedahay citric acid oo cuntada lagu miirtaa deedna si dhadhan u yeelato midaana sidoo kale cuntada lagu daraa ama saladka si uu dhadhanka lean oo kale kugu yeesho isaga wuxuu leeyahay acetic acid ba umaleyn yes ereyga labaad waa volatile waa wax unstable ah wax isbedbedeli karo yes hadda waa si hadhowtu waa si inta badan hadda cryptoda waxaa la yiraahdaa laguma ganacsan karo why because it's a volatile currency waa lacag aad isu bedbedesho haatan waa $1 berito waa $100 maalinta kale waa $10 marka qiimaheeda kolba waa si yes chemicals iyadana waa lamid daawo waxaa jirto inay qaraxda laga yaabo it's unstable waxaan leenahay that chemical is volatile ereyga saddexaad vulgar language luqad xun luqad rude qofka si kibir ah yes leh af laga dalina kula hadashay luqadaas la yiraahdaa vulgar so his language was vulgar luqadiis waxay ahayd mid liidato luqadda bacsanadee taan waxaan leenahay polite ereyga afraad warp waa ficil yani waa twist okay bir amal hadaa leexisid ama aad qalloocisid ayaa la yiraahdaa warp bir ha ahaato alwaax ha ahaado adigu waxa doonto ha ahaato wax markii aad xoog isticmaalayso isku laabaysid ama la leexinaysid ayaa la yiraahdaa warp ereyga shanaad weaver waxaa la yiraahdaa cagajiid qof markuu wax ka cagajiido they hesitate something isla markii go'aan inta qaataan ma sameynayaan taas ayaa la yiraahdaa waver for example Ahmed did not waver Ahmed ma aanu ka cagajiidin isla markii uu go'aan buu qaatay waver yes ereyga lixaad wavy waa wax markay hawada raacayaan dabaysh tusaale timaha haday bis yihiin kuwiga camal ma kuwiga waa jareer way haday bis yihiin dabaysha hadba dhinac u qaadi karto waa wavy hair so waxaan leeyahay I have wavy hair timo waxaan leeyahay bis ah oo halba dabaysha dhinac u qaadi karto wavy yani flag ama wavy sea waa badda markii ay dabaysha sida kolba dhinac ay hir sameynayso wavy yes ereyga toddobaad whereabouts waa qofka raadkiisa his whereabouts are unknown meeshii uu ku dambeeyay lama yaqaan do you know his whereabouts raadkiisa ma ka warantaa whereabout marka waa qofka markii uu lumo ama wax ay lumaan raadkoodii ama meesha ay joogaan la raadinayo yes police asked about Ahmed's whereabout police waxay raadinayaan Ahmed raadkiisa iyo meeshuu ku dambeeyay yes ereyga sideedaad waa winding waa wax markii dhowr meel twisting camal wadadan haddii la laabanayso ama webigan uu kolba jeera maraayo waxaan leenahay this road is winding ama this river is winding yani twisting toos uma socdo wuu la laabmaya ereyga sagaalaad waa ballet taad laguma dhawaaqo ballet baynu dhahayna ciyaar waxaa jirta ballet la yiraahdo qoobka ciyaarka camal waa nooc kamid ciyaarta qofka cirbuhu wuxuu ku istaagayaa faraha kore and then jirka wareejinayaan gabdhaha noocaasna waxaa la yiraahdaa ballerina ama ballet dancer so haddaan ku dhaho she's a talented ballerina she's a talented ballet dancer ballerina waxaa laga wadaa ballet dancer qofka yani ciyaartaas ballet-ga ciyaaro ama soo bandhigo yes so waxaan jeclaan lahaa ciyaartaas sawirkeeda inaad google ka raadisid si aad u heshid ereyga tobanaad u dambeeyo ballot waa codayn vote yes citizens cast a ballot ama the ballot was fair codaynta waxay ahayd mid cadaalad ku dhayahan marka ballot iyo vote waa isku micno waa codayn cashka intaas ayuu ku eegyahay until next time stay safe and God bless you